اللهم صل على سيدنا محمد. nimanka kismaayo ku shiraya maanta looma baahnayn inay mucaaradnimo abuuraan oo ay kismaayo tagaan. maxaa wacay caalamkii oo dhan baa dawladdii ammaanaya. waa markii koobaad 27 sannadood aynu dawlada dariska ah heshiisiino. nimankaa maradaa ka dhacday wixii hore waxba caawa ugu dari maayo, waxba soo saari kari maayaan. maxaa yeelay baatilku meelna ma tago. dawladda Soomaaliya waa la talinaya. nimankaa halkaa ay joogaan yaan loogu tegin oo yaan loo yeedhin oo ayaan wax lagu darsan. maamulay madax ka yihiin iyo ummada maamuladii iyo madaxa iyo dadkii ay u hayeen xilkaa ku noqdeen. intaana dawladdan kula talinaya. enough is enough. albaabkii Ethiopia waa soo xidhmay, albaabkii Kenya waa soo xidhmay, albaab walba oo ay garaacaan waa soo xidhmay. waa ilaahay mahadii oo waa waqtiga weeyaan. ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan leeyahay waa inaad samaysaan mudaaharaad aad kaga hortegaysaan nimankaa cimrigiinnii cunaya ee qabqablayaasha cusub ah. waa wax aad loola yaabo dawlad sannad iyo 6 bilood jirtay in maalin walba ay xagxagtaan oo ay yidhaahdaan dalka annagaa xukunna dawladii ma jirto. waa wax aad looga xishoodo inay madaxweyne sheegtaan. caalamka 7 madaxweyne meelay ka jirto Soomaaliya ayaa jirta. bal dad yahow waxaynu nimankaa ugu dulqaadanayno arka. bal dad yahow nimankaasi waxay inagu samaynayaan arka. intaana ummadda Soomaaliyeed baan leeyahay. beesha caalamka waxaan leeyahay nimankaa nama dhexgeli kartaan, nooma kala dab qaadi kartaan. dawladdayadaasaanu wadannaa, horumar baanu u soconnaa. qabrigii siyaasadda inaannu ka soo baxnaanu rabnaa. caalam yahow haddaad wax taageeraysaan dawladda taageera. laakiin annaga iyo nimankaa kismaayo joogaa haddaannu siyaasiyiintii nahay ama shacabkii nahay wax allaale iyo waxaan u haynaa ma leh. aan hagardaamo iyo lugooyo iyo qabqablanimo cusub oo ay maanta dawladdii ku bilaabeen ilaa iyo 8 February ilaa maanta ayay nimankaasi wadaan. waxa aan ku soo gebagabaynayaa oo aan mar labaad dawladda kula talinayaa halkaa ay joogaan yaan loo dhaafin, yaan wax lagu darsan. haddii ay iyagu mas-uuliyiin yihiin war dadkii ay xukumayeen maye. war jowhar cashuur lagama qaado, war baydhabo cashuur lagama qaado. war kismaayo dhuxul ay dhoofinayso baa ninkaasi dawladdaa ku ridayaayo kula dagaalamaya. cabdiweli cali gaas, bashiir ciise oo wakhtigii ka dhammaaday ayuu qof ay isku reer yihiin u rabaa bangiga. ma waxaynu aragnay uun dawlad la kiritikaaraynayo oo la toorjargaraynayo oo la leeyahay haddaadan waxaa noo yeelin cirkaannu soo duminaynaa. cirka soo dumiya baan idin leeyahay anigu. intaasaan caawa ummadda Soomaaliyeed aan u sheegayaa. wassalaamu calaykum.